gaarigiisa cunug nafta horey loo soo dhaafiyey oo aan wax nafa habeenaatee ku jirin xaafadda Islii ayaa lagu qabtay nin madow ah ama Kenyaati ah. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadii maqribka ka dhacday caawa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ee argagaxa lahayd ilaa ay hadda dadku ay la yaaban yihiin iyo sida Allah subxaanahu wa tacaala uu u fashiliyay ninkaasi gacantana loogu soo dhigay. haddaba sheekadan waxay ka dhacday magaalada Nairobi, xaafadda Islii, gaar ahaan Thadka, sida dadka ay xogaha ii soo diray ee ii sheegayaan. wiil yar oo aad u da'yar oo da'diisa dhowr jir tahay ama 18 meelahaas oo kale ayaa la sheegay in lagu qabtay nin weyn oo Kenyaati ah oo cunuga oo horey nafta loo soo dhaafiyay gaariga soo saartay oo gaariga ku wata. sheekadan raba in ka daba geeyo si la yaab leh marka, oo haddii aad adiga xitaa ogaan doontid in qof bani aadam ah gacanta ayaa lagu dhigay isagoo oo ku wata gaarigiisa cunug nafta horey loo soo dhaafiyey oo aan wax nafa habeenaatee ku jirin xaafadda Islii ayaa lagu qabtay nin madow ah ama Kenyaati ah. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadii maqribka ka dhacday caawa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ee argagaxa lahayd ilaa ay hadda dadku ay la yaaban yihiin iyo sida Allah subxaanahu wa tacaala uu u fashiliyay ninkaasi gacantana loogu soo dhigay. haddaba sheekadan waxay ka dhacday magaalada Nairobi, xaafadda Islii, gaar ahaan Thadka, sida dadka ay xogaha ii soo diray ee ii gaarigiisa cunug nafta horey loo soo dhaafiyey oo aan wax nafa habeenaatee ku jirin xaafadda Islii ayaa lagu qabtay nin madow ah ama Kenyaati ah. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadii maqribka ka dhacday caawa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ee argagaxa lahayd ilaa ay hadda dadku ay la yaaban yihiin iyo sida Allah subxaanahu wa tacaala uu u fashiliyay ninkaasi gacantana loogu soo dhigay. haddaba sheekadan waxay ka dhacday magaalada Nairobi, xaafadda Islii, gaar ahaan Thadka, sida dadka ay xogaha ii soo diray ee ii sheegayaan. wiil yar oo aad u da'yar oo da'diisa dhowr jir tahay ama 18 meelahaas oo kale ayaa la sheegay in lagu qabtay nin weyn oo Kenyaati ah oo cunuga oo horey nafta loo soo dhaafiyay gaariga soo saartay oo gaariga ku wata. sheekadan raba in ka daba geeyo si la yaab leh marka, oo haddii aad adiga xitaa ogaan doontid in qof bani aadam ah gacanta ayaa lagu dhigay isagoo oo ku wata gaarigiisa cunug nafta horey loo soo dhaafiyey oo aan wax nafa habeenaatee ku jirin xaafadda Islii ayaa lagu qabtay nin madow ah ama Kenyaati ah. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago dhacdadii maqribka ka dhacday caawa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ee argagaxa lahayd ilaa ay hadda dadku ay la yaaban yihiin iyo sida Allah subxaanahu wa tacaala uu u fashiliyay ninkaasi gacantana loogu soo dhigay. haddaba sheekadan waxay ka dhacday magaalada Nairobi, xaafadda Islii, gaar ahaan Thadka, sida dadka ay xogaha ii soo diray ee ii